waxaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Istanbul ee xarunta wadanka Turkiga wadahadaladii u dhaxeeyay wadamada Soomaaliland iyo Soomaaliya kaas oo marti gelinaya wadanka Turkiga. kulankan wadahadalada ah oo markii shanaad ee wufuud ka kala socota labada dal ay isku hor fadhiistaan ayaa socon doona muddo 3 cisho kaasoo lagu lafaguri doona arrimo badan oo ku saabsan labada dhinac. dowladda Soomaaliland ayaa in badan ku celcelisay in wadahadalada ay la leedahay dalka Soomaaliya ay yihiin kuwa ay ku cadeynaysa qarannimadeeda uguna bandhigaysa beesha caalamka xaqa ay u leedahay aqoonsi buuxa oo ay hesho iyadoo laga duulayo go'aankii aftida dadweyne ee lagu xaqiijiyay madax banaanida Soomaaliland iyo hanaanka dowlad wanaaga ee dimuqraadiyadda ku dhisan ee ay samaysay. safiirka Soomaaliland iyo Soomaaliya ee wadanka Turkiga Jamaluddin Koni Tyron ayaa si rasmi ah u furay shirkaasi waxaana uu iftiimiyay sida ay muhiim u tahay in jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalka Soomaaliya ay wada hadlaan. Master Koni Tyron safiirka wadanka Turkiga waxa uu soo dhaweeyay una rajeeyay labada wadan in wax fiican ay ka soo saaraan. First of all, it's a very good step that both sides very much eager to talk each other. So this is a good sign, and we hope that they can continue this dialogue and they have some, the mutual agreements to work together. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Maxamed Biixi Yunis oo hogaaminaya wafdiga Soomaaliland ayaa si adag ugu dheeraaday marxaladii kala duwanaa ee Jamhuuriyadda Soomaaliland soo martay iyo sida ay dayaxa uga caddahay in marnaba Soomaaliland aanay diyaar u ahayn inay ku noqoto wixii loo oran jiray Soomaaliya madax banaanida Soomaaliland ay tahay mid ku timi go'aan shacbiga Soomaaliland dhowr sano horteed ayagu goosteen inay gaarisu taagaan taas oo ay mid shacbiga ku dhawaaqeen ahayd aad iyo aad ugu weynid ayaga waqtiga khaasatan markii ay waxyaabo fara badan ku dhaceen oo dhimasho leh oo dhiig leh oo dhibaato leh shacbiga reer Soomaaliland waxay goosteen inay gaarisu taagaan oo midnimadoodii la soo noqdaan. Mudane Maxamed Biixi Yunis wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland maruu ka hadlay wadahadalada u dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa uu ku tilmaamay inuu yahay xalka kaliya ee laba wadan oo walaala ay ku noqon karaan Soomaaliland iyo Soomaaliya. in Soomaaliland ay aaminsan tahay wadahadalka iyo dialogue naga dhaxeeya engagementkan ay Turkiga wado inay tahay xalka hore loogu mari karo noqon doonaan laba wadan oo walaala ah oo jaara. waxaanu qabnaa tan Soomaaliland nahay inagoo walaala ah oo jaara inaan wax badan istari karo meel ka soo wada jeesan karo sida walaaladana Djibouti 3 wadan oo walaala ah oo wax istara oo siman oo isbarbar taagan ayaanu qabnaa in dadka Soomaaliland iyo Soomaaliya ku jirto. Mudane Maxamed Biixi waxa uu daboolka ka qaaday in Soomaaliland ay wax badan ka qaban karto dhibaatooyinka kala duwan ee waagi yimaadaba ka dhaca wadanka Soomaaliya. Soomaaliland waxay qabtaa in ay wax ka qaban karto dhibaatada badan ee maanta Soomaaliya ka taagan ee haysta walaalada iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxa uu soo jeediyay wadanka Turkiga ee dhexdhexaadinaya iyo wadanka Soomaaliyaba in la sii xoojiyo heshiisyadii hore. mar labaad waxaanu qabnaa haddaan Soomaaliland nahay in wada hadaladii iyo agreementskii hore ee hore u dhahay inaynu labadan dhinacba xoojino aanaynu ku dadaalno in wixii aynu ku heshiinay ay dhacaan oo xaqiimoobaan. Mudane Maxamed Biixi Yunis waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in madaxda Soomaaliya ay beesha caalamka ay u sheegaan in Soomaaliland ay Soomaaliya ku noqonayso taasina aanay waxba ka jirin ee ay ka digtoonaadaan. waxaan u sheegayaa walaalada iyo warar badan mararka qaarkood ay soo gaaraan oo laga yaabo wasaare ka mid yihiin dadka caalamka international community ku tiraahdo Soomaaliland way soo socotaa waana ku soo biiraysaa Soomaaliya oo war aan sax ahayn oo xaqiiq ahayn oo dhab ahayn dadka caalamka loo sheego. waxaynu ku wada heshiinay in wixii xumaati keenay iska ilaalino. waxaanu mar labaad u sheegaynaa walaalada iyo talada Soomaaliland goosatay waa tala shacbiga Soomaaliland ka yimid. geesta kale Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ku hadlay magaca wafdiga Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay shirkaasi. waxaan u mahadcelinayaa
delegationka reer Somaliland oo runtii niyo wanaag aad u tira badan iyo dulqaad aad u tira badan mar walba ka aragno waxaan runtii u mahadcelin lahaa walaalaheen Turkiga oo gacan weyn ka geystay wada hadaladan iyo sidii mar walba u taabageli lahaayeen u hirgelin lahaayeen wada hadaladan ballaaran ee magaalada Istanbul